jacaylku waa mid ka mid ah dareenka qof kasta uu ka hadlo, laakiin laga yaabo inay xoogaa dhib badan tahay in erayo lagu qeexo. Jacaylku waa quwad aan la soo koobi karin. Jacaylku waa dareen soo jiidasho xoog leh iyo shucuur fara badan. Jacaylku waa isku dhaf dareen iyo ficilo muujinayo jacaylka qotada dheer aan u qabno qofka kale. Jacaylka dhabta ah wuxuu xambaarsan yahay daacadnimo, naxariis, daryeel, xiiso, ixtiraam, ihtimaam isisiin iyo kalgacayl joogto ah. Sidaa darteed halkan waxaan kugu soo gudbin doonaa 15 calaamadood cilmi nafsi aad ku ogaan karto qofka sida dhabta ah kuu jecel balse jacaylkiisa la xishooday uu kaa qarinayo. Kusoo dhawow mawduuceena maanta. Ugu horeyn waxaan isku qaladnaa in badan ka helitaanka iyo jacaylka dhabta ah. Muddada ka helitaanka waxay ku eg tahay 4 bilood. Haddii aad isku aragto qof aad ka heshay mis qof adiga kaa helay in ka badan 4 bilood, qofkaas sidii maalinta koowaad kaa helay ilaa 4 bilood kadib oo sidii xiisihii iyo jacaylka u haayo, qofkaas xiise kaliya uma qabtid ee dhab ayaad u jeceshahay. Tala yar ku socoto bahda xigmaso ku xiran. Haddii aadan rabin qof ku jecel qofka aad jeceshahay inaad weydo, marnabaha ku ciyaarin qofkaas dareemihiisa. Haddana kusoo dhawaada 15 calaamadood cilmi nafsi aad ku ogaan karto qofka sida dhabta ah kuu jecel oo la xishooday jacaylkiisa marnaba kuu sheegin. Calaamada koowaad, qofka sida sirta kuu jecel wuxuu isku dayaa in badan inuu kuu soo dhawaado si naxariis leh, yacni meelaha adiga joogto ayuu yimaadaa xitaa hadduusan si toos kula hadli karin. Calaamada labaad, qofka sida sirta ah kuu jecel wuxuu isku dayaa in badan inuu ku eego markaa kasii jeedo. Haddaad soo egtane wuxuu dareemayaa walwal iyo cabsi. Waa qof aan awoodin inuu si joogto ah kuu eego. Calaamada saddexaad, qofka sida sirta ah kuu jecel wuxuu la saaxiibaa dadka adiga kuu dhow, asxaabtaada, wuxuuna wax ka weydiiyaa arrimahaaga iyo axwaashaada si sir ah weliba. Calaamada afaraad, qofka sida sirta ah kuu jecel wuxuu kula dhaqmayaa wejiyo layaab leh. Maalin waxaad ka dareemaysaa soo dhawaansho iyo in badan inuu ku eego. Maalinta xigta wuxuu iska dhigayaa qof aan dan kaa lahayn, kuma soo eegayo, ihtimaamkii hore uu ku siin jiray kuma siinayo. Intaasoo dhan wuxuu u sameeyaa inuu qalbigaaga saameyn ku yeeshto si aad ula yaabto ficiladiisa, kadibna jacaylka uu kuu qabo aad u dareento. Calaamada shanaad, qofka sida sirta ah kuu jecel markuu kugu arko meel dad joogaan wuxuu kor u qaadayaa codkiisa si aad u dareento halkaas inuu joogo, wuxuuna sameeyaa dhaqdhaqaaq badan sida inuu hortaada marmaro. Calaamada lixaad, qofka sida sirta ah kuu jecel wuxuu u muuqdaa mid xishood badan ama ka walaacsan marka uu kula joogo marka loo eego dadka kale. Calaamada toddobaad, qofka sida sirta ah kuu jecel waa qof magacaaga saxda kugu yeera, aan naanays iyo magacyo kale lagu yaqaano kugu yeerin marka laga imaado waalidkaaga. Calaamada sideedaad, qofka sida sirta ah kuu jecel waa qof si fudud kaaga xanaaqa haddana aan marnaba ku cidlaynaynin, si walba u dareemo masiir xaggaaga. Calaamada sagaalaad, qofka sida sirta ah kuu jecel haddii aad ka carooto ama kaftan yaroo kugu dhahay aad kaga xumaato, waa qof islamarkiiba ku raaligelinaya. Waa qof muhiim aad u tahay, marnaba rabin inuu ku waayo. Calaamada tobanaad, qofka sida sirta ah kuu jecel waa qof ka xasuusta waxyaalo yaryar sida hadal yar aad u sheegtay ama ficilo yaryar aad samaysay, laga yaabo adiga xitaa inaad ilaawday. Waa qof hadalkaaga iyo ficilkaaga aan ilaawin, qiimo weyn ugu fadhiyo. Calaamada 11aad, qofka sida sirta ah kuu jecel waa qof isku daya in badan inuu kaa qosliyo markaad ku jirto xaalad xanaaq ama xaalad murugo. Waa qof dadaal walba u sameeya si aad farxad u dareento. Calaamada 12aad, qofka sida sirta ah kuu jecel waa qof isku daya inuu kaa caawiyo xitaa arrimo iska yaryar aad adiga qabsan karto. Calaamada 13aad, qofka sida sirta ah kuu jecel wuxuu jecel yahay inuu ku eego, ku dhagaysto, una fiirsado hadalkaaga beddelka inta uu in badan hadli lahaa. Wuxuu ka doorbidayaa inaad adiga u sheekayso. Wuxuu dareemayaa farxad sababtoo ah aamusnaanta iyo xishoodka waa habka ugu dareenka badan qalbiga. Calaamada 14aad, qofka sida sirta ah kuu jecel waa qof aad aaga masiiro qof walba kuu soo dhawaada, wuxuuna muujiyaa falcelin xanaaq leh markaad la qoslayso dadka kale. Calaamada ugu dambayso, calaamada 15aad, qofka sida sirta ah kuu jecel wuxuu ku weydiiyaa in badan waxyaalaha khaaska ah aad ka mid tihiin, sida dabeecad ahaan, waxyaalaha aad ka hesho iyo waxyaalaha aad neceb. Haddii aad ku dhahdo waxaas ayaan ka helaa mise waxaas ayaan necbahay, asigana waxyaalaha aad ka hesho ayuu kula jeclaanayaa, waxyaalaha aad neceb tahayna ayuu kula nacayaa, weliba adiga dartaada. Fiiro gaar ah, haddii aad wax badan ka ogaatay mawduucan cilmi nafsi, walaal si qaldan ha u isticmaalin. Qof si dhab ah kuu jecel haddii aad hesho ilaasho, waa nimco. Qof ku jecel mar walba lama helo, hana aaga faa'iidaysan qof jecelkaaga u dhiban si qaldan weligaa. Ugu dambayn, haddii aad ka heshay muuqaalkani, like saar si uu dad badan u gaaro, la wadaag asxaabtaadoo sheer dheh, hana ilaawin inaad subscribe saarto janaalkeena xigmaso. mahadsanidin.